Assalaamu calaykum dhammaantiin waan idin salaamay meel kasta oo aad joogtaan. Waxaan eegi doonaa kulamadii Premier League ee la soo ciyaaray galabtay ilaa caawa oo la daawanayay kuwaas oo kuwa xiiso badan ahaayeen. Sidoo kale waxaan eegi doonaa kulankii dhexmaray Al-Nassr iyo Al-Hilaal ee derbiga Sacuudiga. Haddaba soo dhawaada muuqaalkaygan haddii uu ku soo gaaray waxaan ka codsanayaa inaad ku soo biirto bahweynta halkan aan ku saaxiibnay ee sportiska jecel. aan ku horeynay kulankii Arsinal iyo Wolves soo dhexmaray ayaa ahaa kulan xiiso badan oo la daawanayay. sanadan Arsenal waxa ay doonaysaa inay ku guuleysato Premier League sidoo Arteta sheegayba. Arteta wuxuu yiri haddaan doonayno inaan Premier League ku guuleysano waa in aan badinaa dhammaan kulamadeena xitaa Man City waa inaan garaacnaa. Haddaba Arsenal waxay la ciyaaraysay Wolves taas oo kaga soo adkaatay 2 gool. bilowga ciyaarta 28 daqiiqo markay ay maraysay waxa shabaqada gaaray Havertz kaas oo caawinta ka helay Bukayo Saka. hase ahaatee Arsenal half-time-kii sidaas ayay ku martay. half-time-kii dambe markii la isku soo laabtayna Arsenal waxa ay dhalisay gooshii labaad oo ay ku soo guuleysatay taas oo Bukayo Saka uu dhaliyay Havertzna uu ka caawiyay. hambalyo reer Arsenal meel kasta oo ay joogtaan waxaan kugu hambalyeeynaya guusha quruxda badan ee Premier League aad ku bilaabateen. sidoo kale waxa soo ciyaaray naadiga Brighton iyo sidoo kale Everton. Brighton waxay marti ku ahayd guriga Everton taas oo bilowga ciyaarta Everton ay qaadatay red card. hase ahaatee Brighton waa ka faa'iideysatay red card-kii ay qaadatay Everton taas oo kaga soo adkaatay 3 gool aan keeber. labada half-time waxa awood sareeyay Brighton ognahay inay ka mid tahay naadiyaasha ugu madaxa adag Premier League. hase ahaatee waxay gaartay guushii ugu horeysay ee Premier League xilli ciyaareedkan cusub. Brighton inay 3 gool ku soo badiso waxay kaga dhigan tahay inay hadda hogaaminayso horyaalka inta game ee la soo ciyaaray walow Arsenal ay ku soo xigto. sidoo kale waxa soo ciyaaray Newcastle iyo Southampton oo sanadan ugu horeysay Premier League sanadii horena Championship ka ciyaaraysay. waxa ay la ciyaaraysay Newcastle taas oo marti ku ahayd guriga Newcastle bilowga ciyaarta red card ayay qaadatay. hase ahaatee red card-ka ay qaadatay ma is ahayn Southampton mid ay ka faa'iideysatay. 28 daqiiqo markii ay maraysay Newcastle waxa ay gaartay shabaqada taas oo halkii gool ku soo qaadatay 3 dhibcood difaacna ka gashay Southampton. aan ku xijinay sidoo kale waxa soo ciyaaray Nottingham Forest iyo Bournemouth taas oo garbasiman ku soo heshiiyay halka Nottingham Forest goolka ay la hormartay tamaadka ciyaartana Bournemouth ay bareejaysay. sidaas ayayna ku soo heshiiyeen oo ciyaartu ay ku soo dhamaatay. sidoo kale waxa jiray kulan weyn oo xiiso badan oo ay wada ciyaarayeen 2 kooxood oo waaweyn West Ham iyo Aston Villa. bilowga ciyaarta Aston Villa shabaqada ayay gaartay walow isla half-time-kii hore ay iska keentay West Ham goolkii penalty oo ay heleen oo Aston Villa qaladka ay lahayd oo ay ka faa'iideysteen oo ay dhaliyeen. hase ahaatee ciyaarta half-time-kii dambe waxay Aston Villa wareegtaba markii dambe shabaqada ayay gaartay oo 2-1 ciyaarta way ka dhigtay taas oo 3 boonti sidaas ku soo hanatay. West Hamna ayadu gurigeeda joogta madaxa ciida loo daray. ma ilaawi doono kulankii ka dhacay Sacuudiga oo ay iskaga hor imaadeen Al-Hilaal iyo sidoo kale Al-Nassr kaas oo Al-Hilaal marti ay ku ahayd guriga Al-Nassr. kulanku waa mid ka xamaasad badan kulamada kale ee Sacuudiga laga ciyaaro waayo waa kulanka ugu weyn ee meeshaas ka dhaca. ciyaartu markay 40 daqiiqo maraysay half-time-kii hore waxa gool dhaliyay Ronaldo kaas oo celebrationkiisa ku turtay. hase ahaatee Al-Hilaal waxa ay ku bedeshay 4 gool taas oo ka dhigaysa in xasuuq loo geystay Al-Nassr. kooxba loo hayaay Al-Nassr waxa loo hayaa Al-Hilaal taas oo sanadii la soo dhaafayna horyaalka ka qaaday iyo 2 koob oo kale. hase ahaatee kulankii ugu horeeyay ee Saudi League waxa madaxa dhulka loo daray Al-Nassr taas oo 4 gool lagu soo garaacay. haddaba dhammaantiin waa mahadsantihiin muuqaalkaygan haddii uu ku soo gaaray waxaan ka codsanayaa inaad ku soo biirto Bila Sports. halkan waxaan kula wadaagi doonaa sportiska qaybahooda kala duwan.